الصحافة دبوا عندكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا أفكار بعض الصحافة ده ما أنت هالكم فرديده عزومي قدوميها حسبك كلية إسلام كان أنا مشارع حسبك كلية إنك استوى شيء قبضي وأنا كأقبلي وأنا تكون هالسنة هاي ما أنت قد شرفت بعض الصحافة ده هالكم وقف لسه كنتي وحنفلي إن أنا تيجي كوضع هاين دوان فيصل على ورابي قدوميها حسبك وعد باصلا وكله بعض الصحافة ده كلها نقطتين تنوعتي لبعضهم حسبي وضننا رتي ونكفلنا تنوكله إنه وقفته واحد تاسم وجهنا رتي وعليه هالكن رتي لقيني أحد إن صحافته نحاول إنه حساب تقرك يوم مشرحين تترتمي سوا كنتي بعض الصحافة حسبي وكل بيسوي ولا صوش قيسي وقتي مدني أحمد محمد السلايو وها مشرحة ينتي وهلك حيبة sidoo kalena imika waxaan filayaa in saxaafadu si fiican ula shaqeyso xisbiga kulmiye iyo dhammaan axsaabta qaranka ee jiraba runtii wada shaqeyntaasi waxa ku jirta danta qaranka sidii halkan hortayba looga sheegay waxaana loo baahan yahay sidii la xusayba maadaama waqti doorasho la geliyo runtii in ay saxaafadu runtii wararka been abuurka ay ku teenka runtii wadaawici kara hanaanka geedi socod ee doorashooyinka runtii inay ka fog jignaadaan sidoo kalena saddex xisbirti waxa looga baahan yahay in ay hadallo iyo tartan xalaala oo ay warbaahintu bulshada u gudbiso si ay dadka ugu baahiyaan cidda anfacaysa runtii ay halkaasi uga jeediyaan runtii saxaafadda Soomaaliland eriyadii halkan ugu badnaa ee laga jeedina waxa ay u badnaayeen sababta lagu heli karo waxyaabahaas inay yihiin xagga aqoonta mudane gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Silaayo isagoo iska xil saaray runtii arinta ahmiyadaasi ay leedahay wuxuu halkan aynu fadhina ka ballan qaaday inuu dhisi doono xaruntii tababarka saxaafadda runtiina intaan ka ogahay hawshaasi waxa ku jirta gabagabo dhawaan inay dhamaato ayaa suurtagal fariintaan ka jeednaa waxa weeyaan xisbigu maadaama doonaya saxaafaddu inuu la shaqeeyo runtii salaanka ugu dhow ee uu ka fuuli karo taageerada saxaafaddu inay halkaa tahay inta aan doorashada la gelin runtii mudane gudoomiye inaad arinta xil iska saarto oo hawsha dhameystirto waxaan qabaa waxa saxaafadda laga doonayo runtii inay halkaa wanaageedu uu ka soo bixi doono sidoo kale gudoomiyaha uma mahadnaqayo kaliya ta munaasabaddan maanta waxaan ugu mahadnaqayaa markii koowaad ee arko gudoomiyihii ugu horeeyay xasan maxamed yuusuf oo maalmahan baxanuusanaya runtii inuu gudoomiyuhu xil iska saaray oo uu diray xaalad caafimaad isbitaal runtii aad bay bahda saxaafaddu u tabaysay waxaan hubaa dhowr kiis oo bahda saxaafadda gaar ahaan weliba ta dawladda kiisaska ugu badan ee jira waa kuwa dawladda suxufiyiinta dawladda intii ay madaxtooyada yaaleen runtii qaarkood ay geeriyoodeen qaarkood ay caafimaadeen qaarkood ilaa xanuunkii weli la jiifaan lacagihii loogu talagalay bahda saxaafadda runtii xukuumadda ka codsatayna weli halkii yaalaan in xasan maxamed yusufiye inta kale xanuunsanaysa weliba saxaafadda gaar ahaan saxaafadda dawladda oo dhibaatada ugu badan isa haysato runtii inaad mudane gudoomiye wax ka qabato waxaan doonayaa halkan maanta inaan ka sheego inuu warkiiska wahay maanta fatira ka ahaa runtii rag badan baa markaa halkan soo geliyay ama markii maanta munaasabadda la Muuse qaban lahaa xuduudda toban Muuse ugu tagi doona waxaan u sheegayaa kuwa runtii Muuse isku ciyaar gool janaan wahayn Muuse waa adeerkay waxyaabaha aanan Muuse bixi ku ilaawi doonin waxa kamid ah labadayada guri waa jaar waxyaabaha aan Muuse bixi ku ilaawi doonin waxa kamid ah anigoo markaas 18 jir ah ADHD dagaalku dhacay runtii baan meel wada gaxnay gurigayga iyo gurigiisu waa isku mid madaweyn habeenkii fiidkii markaan u hooyanay salaadii subaxnimo intii aan la toosin buu intuu na soo dul istaagay inteedii rag ahayd ee meesha maraysay uu nin walba laag ku dhuftay intii kici karaysa markaa ayuu yidhi islaamihii halkaa fadhiyay nin walba waa la dirayaa islaam badan oo hooyadee ka mid tahay baa ku marooto tiri Muuse nin iga weynaa markaa dhaawac ahaa baanu sidnay kii dhaawac ahaa baanu sidaayay ma kuwa kale doonaysa adiga disho runtii halgankii maanta iyo wixii loo toosinayay waa taa maanta gudaheedii aanu cabbin xusuustaasi waxaan u soo qaatay oo igu kaliftay runtii waxaan daraaddii u galay arrintii Muuse bixi sameeyey inaan tababarkii baleecabane galo qoladii beebeesheego u dhiibay aan ka mid noqdo runtii dardaarankii uu sayla
maalintii duhurkii sayla intaan beesheegay dardaarankii halka naga siiyay runtii baan aad u xasuustaa oo uu ku soo gabagabay runtii oday adeera oo hudheer haysan jiray uu yiri intiina halka maraysa mid aan idin wadin ma jirto sida in xaajo cakuushka distiidii hudheelka hoonka laga laagay runtii muuse wuu qalmaa inuu musharax noqdo muwaadiniinta kale la tartamaysa runtii waa inuu qalmaan inay musharaxiin iyo madaxweyneyaal noqdaan dadweynaha runtii garsoori doona bahda saxaafadda waxaan ka codsanayaa runtii dadka kala saar doona waa dadweynaha runtii inaad dadku dhexdhexaad u noqotaan saddex musharax aad iyo aad baad